bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadayaal kusoo dhawaada qodobada wararka janalkeena daynila t v ugu door karoon waxaana ka mid noqonaya halkee laga bixiyey lacagta lagu iibiyey safaaradda soomaaliya ee washington imaaraadka carabta iyo qaramada midoobay oo ka wada hadlay arrin ku saabsan soomaaliya farmaajo oo dhaleeceyn xoogan kala kulmay sabir uu la galay korneel tuke brofesor cali khaliif galeer oo somalilan ku sheegay inay qarka u saaran tahay kacdoona turkishka oo shaaciyey sababta al-shabaab ay u kordhiyeen beegsigooda kenya oo shaacisay inuu dalkeeda soo galay madaxii amniyaadka al-shabaab xilli lagu ogaa gacanta dowladda federaalk soomaaliya geelle oo war ka soo saaray wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan iyo dowladda federaalk soomaaliya uu ku dhawaaqday in xayiraadii duulimaad laga qaaday magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarka ah maamulka jubbaland daawadayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii wararkeena janalka daynila t v ugu door karoonaa inta aan gudagelin iyagoo faahfaahsan waxaan marka hore idiin xasuusinaynaa in aad nagu soo biirtaan oo janalka sabskraib saartaan gambareelkana aad furataan si aad uga mid noqotaan daawadayaasha ugu horeeya ay wararkeena u soo dhacaan haatanna u diyaargarooba qodobadii aad maqasheen oo faahfaahsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in xayiraadii duulimaad laga qaaday magaalada kismaayo dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah u fasaxday duulimaadyadii kismaayo kadib markii toddobaadkii hore ay xayiraad saartay wasiir ku-xigeenka warfaafinta aadan isaaq cali oo la hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in dowladdu fasaxday duulimaadyadii rayidka ahaa kadib codsi uga yimid shacabka reer kismaayo sida uu hadalka u dhigay kadib codsi uga yimid shacabka reer kismaayo dowladda federaalk waxay fasaxday duulimaadyadii rayidka ahaa ee kismaayo iyo muqdisho ayuu yidhi wasiir ku-xigeenka warfaafinta wasiir ku-xigeenka ayaa sheegay in iminka kadib ay duulimaadyada magaalada kismaayo la mid noqon doonaan duulimaadyada kale ee ka howlgala magaalooyinka kale ee soomaaliya tani ayaa ku soo aadeysa xildhibaano baarlamaanka soomaaliya ka tirsan ay maalmihii lasoo dhaafay ku xanibnaayeen magaalada kismaayo hay-adda duulista hawada ayaa toddobaadkii hore ku dhawaaqday in si ku-meel gaar ahi loo joojiyey duulimaadyadii tegi jiray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose muddo 3 maalmood ah si kastaba waxaa weli qasab ah in duulimaadyadii kismaayo iyo magaalooyinka kale ee dalka iyo kuwii dibaddaba iyo kismaayo ay soo maraan magaalada muqdisho geelle ayaa war cusub ka soo saaray wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa ka hadlay wadahadallada dowladda federaalk soomaaliya iyo somalilan oo muddo badan hakad ku jiray ismaaciil cumar geelle ayaa u waramay warbaahinta v o a wareysi dheer oo dhinacyo badan taabanayay ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadalladaasi somalilan iyo soomaaliya isagoona sheegay inuu filayo in dhowaan dib u bilaaban doonaan madaxweyne geelle ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in wadahadalladaasi uu qayb ka noqon doono ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed islamarkaana ay dib u ambaqaadi doonaan wadahadallada labada dhinac geelle ayaa waxaa kale oo uu ka hadlay iskaashiga dalalka gobolka isagoona hoosta ka xariiqay muhiimadda uu leeyahay iskaashigaasi wuxuuna yidhi isagoo arrimahaasi ka hadlayey annaga xaggayga rajo weyn baynu ka qabnaa ama rajadu way ku weyn tahay waxaana dhex joognaa ra-iisul wasaaraha ethoobiya wadahadalladana dhowaan inaan dib u ambaqaadno laakiin iminka wax iska hor imaad ah oo cabasho aan leenahay ama aan doonayno in aanu muujino ma jirto wadahadalkana waan ku rajo weynnahay dharaar aan dheerayna inaan soo saarno dhankii toosnaa inaan u dhaqaaqno ayuu yidhi wuxuuna intaasi ku sii daray haddii annaga lanagala maarmayo waxba kama qabno laakiin iskaashiga ama isdhexgalka ama waxwada qaybsiga waxaa aasaas u ah dhaqaalaha waxaan annagu ku horeynaa dhaqaalahaasi annaga oo gaarayna inaan dadka isku socodkooda uu garwadeen u yahay dhaqaalaha ayuu yidhi dhaqaalaha inaan ka bilowno horumarin badan ayaan ku sameynay wanaagga iga dib u xarakeynta taas badda aad sheegayso mid weyn oo uu maraykanku wado ayaa jirta iyo sacuudiga iyo wadamada khaliijka kaana waan ku dhex jirnaa ayuu yidhi kenya ayaa shaacisay inuu dalkeeda soo galay madaxii amniyaadka al-shabaab xilli lagu ogaa gacanta dowladda federaalk soomaaliya
dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday in dalkeeda uu soo galay madaxii hore ee amniyaadka Al-Shabaab Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo loo yaqaano Ciise Tarabuun. Booliiska dalka Kenya ayaa qoraal ay soo dhigeen bartooda Twitter-ka ku sheegay in Ciise Tarabuun uu Kenya soo galay 24 Sebtembar 2019. Si kastaba booliiska ma aysan shaacin sida Ciise Tarabuun uu dalkaasi ku galay. Qoraalka booliiska Kenya oo uu weheliyay sawirka Ciise Tarabuun ayaa dadweynaha Kenya looga codsaday inay saldhig booliis ee ugu horeeya ku soo wargeliyaan haddii ay arkaan ama ay helaan akhbaar la xiriirta Ciise Tarabuun. Waxaa yaab leh warka ka soo baxay Kenya oo su'aalo badan dhalinaya, sababtoo ah Ciise Tarabuun waxaa markii ugu horeysay lagu ogaa inuu ku jiray gacanta dowladda federaalk Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaa 19 Juun 2017 shacabka ka qaaday in howlgal laga sameeyay qaybo ka mid ah suuqa Bakaaraha lagu soo qabtay Ciise Tarabuun oo xilligaasi ahaa madaxii amniyaadka Al-Shabaab. Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa xilligaas sheegay in howlgalka lagu soo qabtay Ciise Tarabuun uu ahaa mid qorsheysan isla markaana uu yahay guul ay soo hooyeen ciidanka xasilinta caasimadda. Sidaas darteed waxaa su'aal ka taagan tahay sida Ciise Tarabuun uu ku gaaray dalka Kenya isaga oo ku jira gacanta dowladda. Ma iyada oo aan la shaacin ayaa la sii daayay? Ma dowladda Kenya ayaa been sheegaysa oo Ciise Tarabuun dalkeeda soo ma gelin, mise dowladda Soomaaliya ayaa markii hore been sheegtay oo ma aysan qaban Ciise Tarabuun? Turkishka ayaa shaaciyay sababta Al-Shabaab ay u kordhiyeen beegsigooda. Al-Shabaab ayaa muddooyinkii dambe kordhiyay beegsiga ay ku hayaan injineerada u dhashay dalka Turkiga ee lagu wareejiyay dhismaha wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye. Gudoomiyaha hay'adda Turkishta ee Maarif ayaa sheegay in weerarada lagu hayo injineeradooda Turkishka ah uu qayb ka yahay beegsiga ay shabaabka ku hayaan hay-adaha iyo shirkadaha Turki ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, ayuu yiri. Sidoo kale waxa uu sheegay in shabaab ay doonayaan in la hakiyo dhismaha wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye si uusan u fududaan isu socodka labada magaalo. 12 May 2019 nabaaxiga isgoyska Taleex waxaa qarax lagula beegsaday injineer Turkish ah, iyadoona dhaawac daran oo qaraxaasi uu ka soo gaaray uu markii dambe ugu geeriyooday gudaha isbitaalka Digfaar ee magaalada Muqdisho. 18 bishan 2019 sidoo kale injineer kale oo Turkish ah oo saarnaa gaari Hilux ah ayaa lagu qarxiyay inta u dhaxaysa jaamacadda Shabeelle iyo Weydow. Biro Argan ayaa sheegay in Al-Shabaab aysan marnaba ku guuleysan doonin inay Turkishta ka hor istaagaan caawinaadda iyo gacansiinta dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalka u dhigay. Professor Cali Khaliif Galeer ayaa Somaliland ku sheegay in ay qarka u saaran tahay gacdoon. Cali Khaliif Galeer oo horey u soo qabtay xilal kala duwan ayaa ugu dambeyntii xilkii madaxweynenimo ee maamulkii la magac baxay Khaatume State ayaa ka dhawaajiyay inay Somaliland halis ugu jirto kacdoon. Cali Khaliif Galeer ayaa hadalkan ka sheegay shir golaha dhexe ee xisbiga wadani oo ahaa furitaanka shirka golaha dhexe oo ka furmay Hargeysa. Galeer ayaa xusay inay Somaliland qarka u saaran tahay gacdoon dhalinyaro, isagoona sii raaciyay in haddii aan wax laga qaban la isweydiin doono halka ay ku dambeyn doonto masiirka Somaliland sida uu hadalka u dhigay. Cali Khaliif Galeer ayaa yiri, ma dooneyno Somaliland ay leedahay hal reer, balse waxaa u baahannahay Somaliland la wada leeyahay. Wuxuu maamulka Somaliland ku eedeeyay inaysan wax tixgelin siin dhalinyarada ka soo qalin jabisa jaamacadaha, wuxuuna sheegay inay taas keentay inay ku dhammaadaan badda sida uu hadalka u dhigay. Cali Khaliif Galeer oo maalmihii dambe eedeyn u jeedinayay maamulka Somaliland ayaa ka xumaaday in Somaliland fulin weydo heshiiskii ay wada galeen sanadkii 2017 markaas oo uu Cali Khaliif ogolaaday inuu meesha ka saaro maamulkii Khaatume State. Farmaajo ayaa dhaleeceen xoogan kala kulmay sawir uu la galay Cornel Tuke. Saacadihii la soo dhaafay waxaa inta badan baraha bulshada qabsaday dood ku aadan sawir uu madaxweyne Farmaajo la galay Yuusuf Cabdi Cali Tuke oo maxkamad ku taalla Mareykanka ay ku eedeysay xasuuq dad Soomaaliyeed
oo ku sugnaa Gabiley Somaliland xilligii dowladdii Maxamed Siyaad Barre. Madaxweynaha ayaa cambaareyn kala kulmay sawirkaasi. Xildhibaano, siyaasiyiin iyo bulshada isticmaasha baraha bulshada ayaa madaxweynaha aad ugu dhaliilay in maanta uu kiciyay dareenka ehelada dadkii Soomaaliyeed ee ku dhintay gacanta maamulka militariga. Waxaan magaca ummadda Soomaaliyeed raaligelin uga siinaynaa walaalaheena reer Somaliland oo madaxweyne Farmaajo uu dib u damqiyay dareenkooda soona xasuusiyay maalmo murugo lahaa kadib markii uu sawir la galay shakhsi ku eedeysnaa dembiyo dagaal iyo xasuuq dad Soomaaliyeed. Sidaas waxaa yiri ama soo qoray xildhibaan Fiqi oo ka mid ah baarlamaanka Soomaaliya. Xeerbeegtii Mareykanka ahayd ayaa dembi ku heshay Korneyl Yuusuf Cabdi Cali oo ku magac dheer Korneyl Duke, isagoona la sheegay inuu jirdil u geystay xilligii uu socday dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya dad badan oo rayid ahaa. Korneylka ayaa maalmihii ugu dambeeyay taksi wade ka ahaa gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ka hor intaan shaqadaas laga joojin. Korneyl Duke ayaa waxaa dacwo ka gudbiyay Farxaan Taani Warfa oo sheegay in uu jirdil iyo toogasho u geystay, waxaana lagu xukumay inuu bixiyo magdhow gaaraya $500,000 Mareykanka. Haddaba waa kuma Korneyl Duke? Korneyl Duke waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ciidankii Soomaaliya ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre madaxda ka ahaa. Korneylka wuxuu ka mid ahaa saraakiil tababar fiican ku soo qaatay dalka Mareykanka sida uu sheegay qareenkiisa Joseph Peter. Wuxuu dowladdii gacaanka ka ahaa taliyihii guutada 5aad ee militariga Soomaaliya, waxaana lagu eedeeyay inuu mas'uul ka ahaa tacadiyo ka dhan ah bini'aadamnimada oo la sheegay inuu ka geystay gobolladii waqooyi oo haatan la yiraahdo Somaliland. Dhacdooyinka lagu eedeeyay ayaa la sheegay in ay dhaceen sanadihii 1970kii iyo ilaa 1980kii sida ku xusan warqadaha ninka dacwadda ka gudbiyay. Korneylkan Soomaaliyeed ayaa loo haystaa dil 30 sano ka hor dad rayid ah oo loogu geystay magaalada Gabiley. Horraantii burburkii dowladdii kacaanka, Duke wuxuu ka mid noqday saraakiil sarsare oo qaxootinimo isaga dhiibay wadamada reer galbeedka, gaar ahaan dalka Canada oo dowladda dalkaas ay muddo kadib ogaatay in loo haysto eedamo la xiriira gabadfallo. Korneylka ayaa waxa uu u wareegay waddanka Mareykanka kadib markii warbaahinta CBC ee Canada ay baahisay barnaamij lagu soo bandhigay gabadfallada loo haystay, waxaana qaabka uu ku tegay dalka Mareykanka ka dambeysay xaaskiisa oo fiisa ama talkugal u soo dirtay markii ay heshay dhalashada Mareykanka sanadkii 2006. Xaaskiisa ayaa sidoo kale loo haystay ka been sheegidda qaabka ay ku tagtay Mareykanka. Ugu dambeyntiina, Imaaraadka Carabta iyo Qaramada Midoobay ayaa ka wada hadlay arrin ku saabsan Soomaaliya. Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa Qaramada Midoobay kala hadlay xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee dalka Soomaaliya ku jiro. James Iswan oo ah wakiilka Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa kulan la qaatay Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Imaaraadka Anwar Kargasha. Wakaaladaha wararka ee dalka Imaaraadka Carabta ayaa faafiyay in labada mas'uul ay ka wada hadleen amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Anwar Kargash ayaa Mr. James u xaqiijiyay in Imaaraadka ay tixgelinayso muddo-xileedka howlgalka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya. James ayaa bishii May loo soo magacaabay ergeyga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya kadib markii ay dowladda Soomaaliya ceerisay ergeygii hore ee Haysom kadib markii ay ku eedeysay inuu faragelin ku sameeyay arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa ka mid ah dowladaha saameynta ku leh Soomaaliya, waxaana dhowr jeer faragelin ku sameysay arrimaha Soomaaliya iyadoo heshiisyo aysan dowladda dhexe ka warqabin la saxiixatay qaar ka tirsan maamul goboleedyada Soomaaliya iyo Somaliland. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maamulo qaar ka tirsan dekedaha iyo garoomada diyaaradaha ee Soomaaliya ku yaal iyadoona aysan jirin xiriir wanaagsan oo kala dhexeeya dowladda dhexe ee Soomaaliya. daawadayaal, waxaan halkan ku soo gabagabeynayaa guud ahaan warkii aad kala socotay janalkeena Daily TV. intaan warkan warka xiga u kulmi doono annagoo isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.